رملة سعيد أحمد علي وقبل يجوه رئيسي صوماليا أو قريب جشة ترتك أولمبي كذا يدو فيرتميسا وحا أي قربتها لعياري دوتا قبل قدرته ودكاس روماني اللي يرادو ماريا كلوديا نيكيتيا oo iyadoo markaasi ay wada feertami doonaan feerkoodana waxa uu yahay wareega 16 saacada Afrikada Bari marka ay tahay 2:12 daqiiqo ayaa feerkaasi uu dhici doona waxaana markaasi jirta in Ramla oo 31 jira ay aad iskugu diyaarinaysay ka qaybgalka ciyaaraha Olombikada waxaana markaasi ay kamid tahay laba qof oo Soomaaliya uga qaybgalaya ciyaarahaasi kan kale waa wiil ordiyahana oo markaasi isagu ka tagay magaalada Muqdisho laakiin Ramlo 2017 dalka Ingiriiska waxay ku guuleysatay feer waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslima ee ku guuleysata feer iyadoo markaana ay taasi wixii ka dambeeyana go'aansatay inay Soomaaliya matasho in muddo isdiyaarinaysay markeedii hore Ramla oo yaraan ku soo gashay dalka Ingiriiska waxay sheegtay in ay jeclayd xagga kubadda cagta laakiin feerka waxay u samaysay mar la wareysi la yeeshay iyadoo markaasi jirkeedu uu buurna ama cayilnayd waxaana ay sheegtay in iskoolka ay kala kulantay in lagu caayo cayilkeeda markaa kadibna ay go'aansatay inay gasho gym ama xarumaha jimicsiga si markaasi ay jirkeeda u dhisto isla markaasina cayilka u dhinto laakiin waxay sheegtay inay ka heshay feerkii iyadoo markaana go'aansatay inay ku sii socoto arrintaasi waxay sheegtay inay horay qoyskeeda gaar ahaan hooyadeed dhibaato kala kulantay inay feerka ciyaarto laakiin waxay sheegtay in markaasi ay go'aansatay in iyadu si qarsoodi ay u samayso hooyadeedna ka qariso dhaawacyada had iyo gooraale ka soo gaari jiray tababarka feerka jaamacadda magaalada London ayay ka baxday waxayna baratay qaanuunka laakiin markii dambe waxay ku biiday in ay xoogana saarto xagga feerka ama ciyaaraha waxaana markaasi aad u jirta in Soomaali badan ay feerkan galabta dhici doono ay aad u sugayaan laakiin markaynu fiirino gabadhan la tartamaysa waa gabar 27 jir ah oo ku dhalatay caasimadda waddanka Romania feerar badan bay ka qayb gashay gaar ahaan feerka Europe waxaana markaasi jirta in feerka Ramla iyo Maria si weyn shaashadaha lagu soo dayn doono qofkii guuleystana bilad ayuu heli doonaa gaar ahaan bilada dahabka Ramla hadii ay guuleysato waxay noqon kartaa gabadhii ugu horeysay bilada dahabka ku guuleysata ciyaaraha Olombikada marka Soomaali badan waxay leeyihiin nasiib wanaagsan